وارلحلة عندنا لمصنا. إما كبر كي واحد تاجن مجاهد على الجري أو كم ده مجاهدين توركي أصلاً إن مجاهد مركه هراء ما حد كحوس تاريخ اللحلة. إن تاريخ ذا لحلة قفكي دونية. وحا دوار لقى قريبوك. إنهم يسوون مجاهدين تكمل هوك عشان عدل أو كقري جامع. تاريخ دي سلقة دبال ماي أو نكيدوني بوجا هاي بسدوها آخريو. أظن قرمس برتين. أنا قرطان إسبرني إسكدا اللي حلم حان كورن كره. هي كم مهم سن. إن هذا نسكو صوت الدروه. أو أنا السريع اللي حلي إيري قرا كسو كوب. وحنورن لها. مركل إسكو درو السنة مودن. saraakiisheedii mujaahidiinteedii dadkii halganka intii guda iyo dabadba joogtay oo kulligood intoo la isku daro qof qura la iskaga dhigi lahaa qofkaasi wuxuu noqon lahaa maxamed xaashi deeriye lixli marka ninka aan sidaa u sheegayaa nin aan si dhib yar intoon u furfuro uga hadli kara maaha runtiina wuu u qalmaa waanu yahay astaantii halgankii asnan waxba kaaga filan goobtu ku dhintay iyo madheera iyo isagoo aan taginba Itoobiya inuu dalka gudihiisa halganka ka bilaabay isagoo gaashaan la sara oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya madheera de waxaad ka helaysaa buuga tafaasiisheeda laakiin anigu waxaan ka hadlayaa qof ahaantiisa qof la mid ahaa oo aan ku mathaalo oo xataa role model u ahaa ma jirto wuxuu ahaa insaan gooni ah oo ilaahay si gooniya u abuuray wanaagga intii uu qof bini'aadmiya siin lahaana uu dhammaantood wada siiyey lixle wuxuu ahaa nin ka nadiif ah xumaanta qabyaaladda iyo kooxaha iyo kala qaybqaybinta dadka oo inta badan saraakiil badan ay ku gubteen kaadhirkooda marka wuxuu ahaa nin dadka oo dhan kulmiya markaa mujaahid aslam waxay u soo aasaasantay isla markaasina muxuu ahayd ay dalkan keentay xoreyn wixii loo dagaalamay maanta ma ka muuqdaan deertoo ka muuqdaan ciidan ay ahayd hanashadeedana dee waxaa la jiilalkan dambe ee maanta jooga hadday hananayaan iyo hadday hagaajinayaan iyo haddii annagu talon baanu ku leenahay markaanu annagu dhowr iyo 20 jirka ahayn ayaanu bilowno qori qaadano siyaad barre ilaa intii la ridayay ku jirnay wax ku dhintay iyo wax ka soo baxayba halgankuna maanta qori maaha ee waa siyaasad iyo aqoon iyo cilmi marka generationada dambe inay jiilkooda qaataan oo ay ilaaliyaan midhihii halganka ayaa dee looga baahan yahay wixii aad u dagaalanteen markaa in mar mujaahidiintu u kala dambeeyay Muuse iyo maxamed Silaayad ka waran si dalka ugu dhaqan war dadku waxuma wada dagaalamin raggan asnam aleedii adeer waxuma wada dagaalamin anigu wixii aanu dagaalamay intii soo dagaalantay waan aqaanaa mana ahayn inay madax iyo kuraasi helaan iyo inay lacag ka helaan iyo inay guriye iibsadaan waaweyn iyo inay milyaneer noqdaan marka waxa ku jira sanam dad lacag soo dhacay oo ka soo baxday siyaad barro oo nabadgelyo soo biya qaar iyada u soo shaqo tagay baa ku jira wax soo doontay qaar madaxnimo ku doonayay baa jiray marka halganka qof muraad buu ku lahaa asxaabihii rasuulka ee muhaajiriinta ahaa ayaa ilaahay yiri subxaanahu wa ta'ala ninkii maalu tabcado u soo hijrooday iyo kii gabadh qurux badan uu guursado u soo hijrooday iyo kii hor ilaahay iyo rasuulkiisa u soo hijrooday mid waliba wuxuu leeyahay wixii uu soo hijrooday waar lixle cidna lama sinna nin ku dherarsanaya oo SNM ihina ma jiro ninkaasi waa halganka astaantiisa waxaan ku raacsanahay magaca uu bixiyay gaashaan cad buuga wuxuu yiri astaan halgan sarkaal kaloon anigu odhan karo waa astaan halgan oo lixle ahayn ma jiro